wanaagsan caruuray markale kula soo dhawaada qayb kale oo kamid ah sheekooyinkeenii taxanaha waa sheeko xariira kale waxay bariba ya caruuray waxa jiray digaagad meel kula nooleed koox kale oo xayawaan ah waxayna ku wada noolaayeen xero weyn oo ay wada deganaayeen maalin maalmaha kamid ah ayaa caruuray digaagadii waxay u soo baxday banaanka si ay u doonato cunno waxayse ka fikirtay in saaxiibadeeda kale ee la nooli ay la raadiyaan cunnada banaanka ayayna uga soo baxday halkii ay ku xareysnayd markii ay cabaar soo socotay ayaa waxay markiiba doontay bal inay weydiiso sac oo kamid ah xayawaanka meesha kula xareysnaa inuu cunno la doono si ay wax u wada cunaan sici waxa uu maya anigu waa maanta bacad oo ma bixi karo oo isaga tagtay oo waxay u tagtay doofaar oo meel aan ka fogeyn ku xareysan waxay weydiisay oo ku tiri bal sabax aynu wada raadsano cunno aynu wada cunnee sidiise lamida ayuu doofaar waxa uu uga jawaabay maanta waa kulayl iyo qorrax daran oo ma bixi karo way ka tagtay oo waxay u timi meel hurda waxay ku tiri kaalay aynu qaraab tagnay aynu cunnada wada doonanay isna waxa uga jawaabay waa kulayl oo meel la u bixi maayo waxay ugu dambeyntiina u timi xur biyaha badeeda jiifta waxayna ku tiri kaale cunno isla doonanay oo qaraab tagnay xurtuna waxay ku tiri waa kulayl oo biyahayga dhan uga bixi maayo waxaana digaagadii go'aan ku gaadhay inay kalideed iyadu cunno raadsato cabaar markii ay caruuray socotay ayaa waxay heshay miro meel yaala midhihii ayay ururisay markiina waxaa maskaxdeeda ku soo dhacay in midhahan la beeri karo oo ay mustaqbalka u noqon karaan beer weyn oo ay cunno badan ka wada samaysan karaan waxayna saaxiibadeed ka dalbatay in midhaha lala beero si ay beer uga samaystaan midhana uga goostaan mustaqbalka waxayna weydiisay sac oo ay ku tiri ma ila beeraysaa waxa uu maya waad ogto waa kulayl anigu waxna kula qaban maayo doofaar ayay haddana ula timi isna waxa uu yidhi maanta waa kulayl iyo qorrax daran oo meel la u bixi maaya anigu markaas ayay ka tagtay oo eygii oo haddana markale hore weydiisay bal inuu midhaha la beerayo isna waxa uu ku yidhi may haba sheegin waa bacad anigu meel la u bixi maayo maanta midhana kula beeri maayo xoor ayay u tagtay oo weydiisay intee leeg xoorina waxay ku tiri waa kulayl oo anigu waxba kula beeri maayo ee iska tag markaas ayay digaagadii kalideed go'aan gaadhay in iyadu ay midhaha beerto midhihii ayayna ku beertay halkii ay ugu talagashay oo ahayd xero ay xayawaanka kale kula nooleed maalmo kadib ayuu roobku daayay qorraxdiina soo baxday toddobaadyo kadibna waxaa markiiba soo baxay midhaha waxaa la soo baxay caruuray caleen kale oo ay tahay in laga saaqo amba laga gooyo waxayna ugu yeedhay saaxiibadeed si midhaha ay beertay ay uga caawiyaan sidii ay caleenta ugala jari lahaayeen balse sidiisii la mida ayuu mid waliba ka cudur daartay caruuray oo uu yidhi anu waxba kaala qaban maayo sac ilaa doofaar xataa xuurtii ayaa diiday oo ku tidhi maya waxayna digaagadii go'aan ku gaadhay in kelideed ay beerta ka shaqayso oo ay midhihii ay beertay ka goyso waxa kale ee ka soo hoos baxay taasna digaagadii ayaa kelideed samaysay maalmo kadib midhihii way baqleen waana dheeraadeen waxayna gaadheen heer hadda la goosan karo oo laga samaysan karo raashin la cuno saaxiibadeed ayay mar kale u yeedhay siday uga caawiyaan goynta midhaha balse sidiisi la mida ayuu mid waliba diiday sac ayay weydiisay kaale beertanu jaraynaa maanta si aynu midho uga goosanno waa bislaatay mar hore sicid waxa uu yidhi maya doofaar ayay weydiisay weli waxa uu leeyahay waa qorrax oo waa kulayl waxna kama qaban karo anigu maanta oo kuma raacayo iyadoo ka niyad xun ayay u tagtay way bal weydiisay inuu wax caawimaada ku tari karo oo beerta la jari karo si ay midhahooda u goostaan isna waxa uu yidhi anigu meel la maanta uma baxayo sababta waxa weeye waa kulayl xoor ayay u tagtay xoorina sidiisi la mida ayay mar kale iyaduna ku tidhi maya waxba kula qaban maayo waxaana digaagadii go'aan ku gaadhay in iyadu kelideed ay midhaheeda goyso oo bal ay isxilqaanto mar kale midhihii ayay soo jartay guriga ayaanay keentay waxay hadda ogaatay in midhuhu u baahan yihiin in la shiido oo la burburiyo si daqiiq looga sameeyo mar saddexaad
ayay saaxiibadeed u timi way caawimaad carruuray weydiisatay yaa ila shidaya cunada midhahan soo gooyay sac ayaa yidhi anigu imikaba kuma jiro oo hadda yaacana layga lisaya doofaarna waxa uu yidhi maya anigu waan daalanahay oo waxba kuma tari karo hey ayaa isaguna sidiisa lamida cudurdaartay xuurna waabay ka sii carartay markay araggeeda aragtay digaagadiina keliyeed ayay midhihii burburisay oo shiiday waxaana ay ka samaysay daqiiq weyn oo hadda rooti laga dubi karo mar kale ayay digaagadii tiri haddaba saaxiibada u yeedh rootidaha kula duwaan oo daqiiqdaha kula xashaan mar haddaad intii koro dhaba qabatay sac ayay weydiisay waxay ku tiri kaalay hadda ila samee wax walba waan diyaariyay daqiiqda ila dub markaas ayay tiri maya way xanaaqday doofaar ayay u tagtay oo isna waxa yidhi anigu waxba ma dubi karo kuma raacayo waa bandaalanaha uu istuuray ee ila haraabo ka soo cudur daartay xurna markii uu soo dhawaatay ayay u sheegtay inaysan uba soconin oo waxna la qabanaynin maanta ayay u cadhootay digaagadii carruuray markaasay go'aan ku gaadhay in kelideeda iyadu ay daqiiqdeeda xashto kana samaysato rooti wanaagsan oo iyadu markaas cunto way hagaajisay waxayna gelisay moofadii muddo ayay u daysay taniya inta ay ka bislaanaysay shaaxid ka noqonaysay markii aysan kala raacday qiiqa wanaagsan ee ka soo baxaya oo ah inay roodhidu shaaxitay ayay la soo baxday bannaanka ayay la timi miis ayay carruuray soo dhigatay iyo hal kursi oo keliya way ku fadhiisatay markaasay si dheeleela ku tiri saaxiibadeed yaa ila cunaya wax walba waan soo dhameeyey oo hadda miiskaan saaray ilay markaasa carruuray markay dhawaaqa maqleen hal mar soo wada yaaceen oo ay ku soo wada ordeen cunnadii aysan wax tacaba gashan noojar maxana alla waxa urgooba ka soo oraya alla wanaagsan ayuu mid waliba afka ku dhuftay wuxuuna ku yidhi inuu xoolo aanu tacab gashan carruuray cuno digaagada ayaa ku tiri maya soo ma ogidin wixii oo tacabha oo aan ka soo maray ilaa beeristeedii ilaa goynteedii ilaa shiidisteedii ilaa qooshideedii keliday ayaa xoogsaday oo cunaya markaasay cuntay oo macaasatay muddo kadib ayay aragtay sida foosha xun ay uga wada dul ooyayaan waxayna aragtay inay cashar u dhigtay waxay ku tidhi soo ma ogadin haddaan wax laysla tarin inaan waxba qadanayn iyana waxay ka wada garaabeen khaladka ay galeen waxayna u ballan qaadeen inayn maanta kadib waxaa samayn doonin cunnadiina qayb ayay ka siisay markii ay casharka u dhigtay carruuray sheekadan waxaad ka baratay maamaada soomaalida ee tidhaahda xagla laaban xoolo kuma yimaadaan macnuhu waxaa carruuray weeye haddii aan la iskaashan oo aan wax la wada qabsan inaan wax la leeyahay la wada heli karin gacmo wada jir bay wax ku gooyaan gacmo wada jir bay carruuray wax ku gooyaan digaagadina sidaas ayay ku faraxday xayawaanna waxaana sidaa kula noqotay saaxiibadeed kuwa la shaqeeya sheekadanna waxaad ka baranaysaa in wada jirku yahay wax weyn oo nolosha qiimo ku leh sheekadana hadday ku dhaafta carruuray waxaad ka dhegaysan kartaa dhalaan koriye boggeena ayaad sidoo kale saari kartaa like iyo weliba subscribe haddii aad ka hesho sheekooyinkeenna aad iyo aad ayaan idiin salaamaya tan iyo maalinta tan ku xigta carruuray nabadgelyo